قصدي أجهريسي هنسوق هذا الحقيقة المرة وحقيقة ذي قراريت هويني أيا أضي لهيت 5 سنة أيو قبي دارين أيا ليلى هذا هوينا داس وحرور أمي waxay ku fikiraysay maalinka ay noqon doonto hooyo ay ilmo yeelan doonto ilaahay bay bariyay rabbi subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay walad saalixa u siiyo ay bariyay in badan ay ducaysan jirtay ilaahu walad isi ilaahu 5 sano yaan ku bariyay rabbi walad isi ilaahu walad isi aad bay u jirtay waxay ku fikiri jirtay maalinka hooyo noqon doonto ilmo yar arki doonto ay ku fikiraysay haweenaydii waxa is aragtay isbedel bay iska aragtay caadadii baa ka joogsatay iyadoo madax xanuun leh is aragtay waxay aragtay iyadoo isbedeshay ayay is aragtay dhakhtarkay tagtay way isbaadhay odayga raacay wuxuu dhakhtarkii u sheegay inay uur leedahay way farxday farxad 5 sano sugays farxad isqaadi kari weyday dadkaygu bay ugu sheegtay farxad wala isku yimid farxad ducaa la sameeyay wiilkii ay sugaysay ayaa yimid oo dhashay waxay u bixisay Muhammad ay u bixisay laakiin wiilka waa lagu jeexay aad bay ugu faraxday wayna ku dhibaatootay jeexitaanka ilmaha lagu jeexay ku dhibaatootay odagayga waxay ka codsatay in ay u qabto haweeney u shaqaysa qaadimad iyo qabo uu qabtay waxa jiraysay islaan daa oo faqiirada oo miskiinada oo guriyaha u shaqaysa ayaa jiri jirtay islaantiiba u keenay si ay ugu shaqayso markay 7 u shaqaysay ayaa waxay ku tiri haweeneydii daarin bay ku tiri islaan da'an ahay laakiin inan yar baa guriga ii joogta anu aan dhalay inantaasaan kuu keeni ha kuu shaqayso anaana shaqada bari maalimaan la joogi ay ogoloobay tiri waayahay bay tiri sidii bay inanteedii yareed ba u keentay inantii baa ay shaqada tusaysay 20 maalmood ay u shaqaynaysay islaantuna ay ag taagneed gabadheeda tayad da'deedu 17 jir ayuu yahay aad bay u qurux badantay way soo labisan jirtay markay gurigan imanayso way soo qurxin jirtay soo labisan jirtay markaas iman jirtay daarin ba aragtay tayo mar walba isa soo qurxisa waxay ku tiraahday soo qurxin way cabsanaysaa odagayga oo cabsanaysaa in meesha fidna ka dhacdo mayba ku yiri maxaa dhibaato ah iyadoo foolxum inta ku iman lahayd soo qurxisa dhibaato male inay faliisiiso ayay doontay waxay tiri wuxuu ku yiri may 40 ka dhamayso kadibna markaa iska faliisi laakiin ku shaqayso tiyara guriga ka shaqaysaa way soo qurxisaa 37 maalmood markay u shaqaysay ayaa gabadhii daariin xumadii xanuun dhiigii nifaaskii ayaa xumad ka qaaday ay ku xanuunsatay odaygii ayaa sida caadadiisa si aan ahayn ayuu subaxdii markuu soo baxo uu iman jiray uu wareysan jiray sideed xalay ahayd wadigii xanuunsanayay maxaa subax uu iska soo kacay baabku mu ka baxay way shakiday maxaa dhacay bay tiri talo muxuu ii soo mari waayay uu baridin waayay way shakiday gabadhii shaqeed ahayd ba u dhawaaqday gabadhii ayaa maqli weyday aad bay xanuunsanaysaa way soo kacday iyada raadinays aqalkii bay dhaxmar martay way ka weyday qolkii ay seexanaysay ay ka raadisay way ka weyday guriga xaqii mandarada ahay bay u kacday waxay aragtay qolkii odaygaygu u seexanayay iyadoo ay wala seexan jireen oo dharkii hurdada xiran tahay oo hurdo lugta du saartay albaabkay furtay waaba gabadhii oo waa maxay bay tiri waxaad samaysay way ku qayliday ma waxaad seexanaysaa guriga odagaygaad seexanays oo dharkaygii baad xidhanaysaa
dharkii hurdada miyaad xidhan waxay ku tiri hadalkaaga u fiirso ha igu dambaabi gurigan anigaale ma ogid uu i guursaday odaygu in 7 laga joogaba caruusad baan ahay arrintiiba meesha khilaaf baa ka yimid waa la isku qabtay meesha feer bay bilaabeen dumarkii iyo xagash dhulkaa la isku ladgay meeshii dagaal xoog laa ka dhacay kadibna ilmihii yaraa bay soo qaadatay axmed mise maxamed buu ahaa maxamed way la soo dhaadhacday hoostay la joogtaa odaygaygii baa yimid isagoo lalaya aaway buu yidhi waxay tidhi kor bay joogtaa uu dhawaaqay ummu maxamed xaggee joogtaa albaabkiiba furay waaba iyada oo mayda oo caloosha u jiifta oo dhiiga ka soo dareeray meel socdo uu dhawaaqay khaadimaddii baa soo oroday meeshii bay timid waxay tihi maxaa dhacay subxaana allah iyadoo fiican ayaan ka imid hab kori maan ku odhi meesha ma kori karaysid laakiin way kortay xaggii buu dhawaaq ku dhuftay akhiiran waxay socotaba qisaddii dadkii jaarkaa yimid dhakhtarkaa loola orday dhakhtarkii wuxuu sheegay inay dhimatay albaabka fardada albaabka ayaa meeshii laga jeexay ka gashay nabarkuna wuu furmay sidaasay ku dhimatay ninkii dhakhtarka ahaa baa waxa uu yidhi miyuuna qofin la joogin markaas may buu yidhi wiilkayga yarmaa la joogay maxamed waa qadar ilaahay baa la yidhi saasaa lagu aasay 3 maalmood kadib markii la aasay ayuu reerkoogii ayuu u dhawaaqay gabadha xaaskiisan dhintay uu ogeysiiyey gabadhiina way dhimatay ee kaalaya aabbaheed hore u dhintay ahayd hooyadeed iyo walaalkeed baa yimid waxay ku soo tashadeen inay wiilka yarna ay qaataan maxamed ay korsadaan iyagu u soo dhoweeyey inantii shaaqiyadda ahaydoo meesha taagan magaceegana jamaalaad baa la yidhaahdaa oo meesha joogta ayay aragtay islaantu waxay ku tidhi odaygay ku tidhi gabadhani waa ayo abu maxamedow waa ayo gabadhani waxa uu ku yidhi innahaa zawjatii waa haweenaydaydii daarin iyadoo oo nool baan guursaday gabadhan ma sidaasaa bay tidhi haa way shakideen markaa waxay tidhi gabadhaydii yaa dilay see u dhimatay waan ka shakisanaya habkaad iigu sheegtay inay u dhimatay gabadhan may joogtay haa gabadhan waan qabay laakiin lamay joogin maalinkaas qadar allah dushay fuushay albaabka jeedhay naburkaasaa ku furmay gabadhi yareed bay eegtay caruusadii jadiidka ahayd waxay tidhi maxamedow i dhegayso idaa kaanat alxaqiiqatu ikhtafat can almakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoonaatay makhluuqan ay ka qarsoon tahay xaqiiqadu falan takhtafii can alkhaaliq ilaaha khaaliqa ah ka qarsoonaani mayso weligaa ilow dembigan mow u male in la iska iloobay laakiin ilaahay iloobi maayo waa ku daba soconi arrintaasi ogow abu maxamed uma aaba yeelin arrintaas waxa uu yidhi kullu insaanin ya'khudu nasiiba qof walba nasiibkiisuu qaadan way dhimatay nasiib abu maxamed waxa uu doonay inuu sharaab iyo u shubo oo iska diiday islaantii way xanaaqsan tahay waxay tidhi ilmahan korsanayna annagaa ka haysanayna waa yahay buu yidhi waxa uu ku yidhi bishii walba masruufkan keeni may bay tidhi annagaa korsanayna adeerkii ayaa wiilka qaaday way baxeen haweenaydii shaaqiyadda ahayd jamaalaad la odhanayay gurigii viilada ahaa ayay ku nimcaysataa oo ku dhex noosh marna dushay tagtaa marna hoos nolol fiican ayay ku noosh faqiirnimadii way ka raysatay xaalkeegu wuu wanaagsanaaday sanad kalaa soo maray si wanaagsan sanad kalaa soo maray si wanaagsan carruur bay u dhashay 8 wiil
iyo 3 hablood ayay u dhashay waa imis 11 ayay u dhashay maalin walba qurux baa u biiraysay miskiinad bay ahayd faqiirada aan waxba haysan nimcad bay soo gashay laakiin dembigu ma yara ilaahay addoonkiisa waa u kaadiya markuu qabtana kama siibto iyadoo oo nimcadda ku nool ayaa odagayga waxay ku tiri waxaan doonayaa inaan soo yara dalxiisno in yar hawadaan soo yara bedelaynaa magaalo kale nagee aan soo yara dalxiisno waayahay buu yidhi baabuur buu ku qaaday weyn iyada iyo carruurteedii oo dhan 11kiiba isagaana ku waday baabuurkii baa la qallimay gebigood waxaa ka badbaaday iyada iyo wiilkaygii weynaa ee curadka ahaa bes intii kale way ku dhinteen iyadii lafta dhabarka ayaa jabtay wiilkaygiina in gacanta iyo meeluu ka jabay laakiin waa iska fayowga markii ay soo miyirsatay ayaa waxay ogaatay in carruurteedii inankaas uu ka nool yahay 10kii kale inay dhinteen ayay ogaatay iyadiina waxaa ku dhacay dhinac baa baktiyey baralisiya baa ku dhacay 3 sano ayay dhakhtarka ku jirtay wiilkaygii 2 bilood buu ku jiro oo ka soo baxay noloshiiba hadda ku culusaatay waa la bilaabay dembigii baa bilaabay waxay ku socotaa waa kursi yaa lagu wadaa dadka laxaad kale kursiga ay raacaan ay ku fadhiistaan ayay ku socotaa wiilkeegii ayay ku tiri ii kaale dhakhtarkan ka soo baxe baabuur buu soo kaxaystay isagana waddada markuu soo socdo baabuurkii la rogmaday isaguna waddaduu ku soo dhintay wax u yimaada way weyday waa keligeed laakiin lacag baa leedahay la soco dhakhtarkii ayaa reerkoogii bay raadiyeen aabbaheed iyo walaalkeed baa yimid si ay u qaataan waxaa yimid moxamed maad garanaysaan moxamed waa wiilkii oo odagayga u dhalay ayaa yimid si dhaxalkii aabbihii uu uga qaato waxaa la socotay macoydii ayaa la socotay islaantii dhashay daariin gabadhii meeshay soo taagan tahay waxay tidhi markay islaantii aragtay ayay xasuusatay inay dembi gashay waxay ku tidhi habar yar maad xasuusanaysaa hadalkaagii aad igu tidhi ida alxaqiiqatu ikhtafat can almakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoon tahay makhluuqa dadka ay ka qarsoon tahay ilaaha khaaliqa kama qarsoono maxasonta haa bay tidhi waxay tidhi saamixnii ana alatii qataltu daariin gabadhaadii daariin anigaa dila isaamax ilaahay waa kan ii qabtay carruurtaydii oo dhan waan waayey anigana waa ka dhabarkaa la iga jebiyey nolosha qadhaadh baan ku noolahay isaamax islaantii way ooyday waxa ay tidhi ilaahay nolol xun ha kugu noolaysiiyo aakhirana ha kugu cadaabo waxa ay tidhi odagaygii waan waayey awlaaddaydii waan waayey shabaabnimadaydii iyo caafimaadkaygii waan waayey in yarum isaamax islaantii iyadoo cadhaysan oo ooyeysa ayay ka baxday jamaalaad xaggii bay reerkoogii la joogtay aabbaheed baa dhintay walaalkeed ayaa u hadhay lacagtii yaraydee soo dhaxashayna isagaa ka qaatay khamru ku cabbay wuu ku sinaystay isagiina akhiiran suxun buu u dhintay jaarka ayaa lacag u soo ururin jiray sadaqadda la siin jiray jamaalaad keligeed ayay ku nooleed maqsin yar oo cidhiidhiya cidlay ku dhimatay waxaa lagu gartay dhimashadeedii meydkeegii ayaa meesha ku qurmay markaasay jaarkii uriyeen meydkii cadaabka aakhirana waa ka daran yahay dembigu waa sidaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu kaadin
laakiin maalinka uu ku qabto rabbi ku naxariisani maayo. waad iska noolaan waxoogaa waad iska jiri, laakiin maalinka ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku qabto ka fakan kari mayse. waa xaqiiqo, waa qisad dhaba, ma aha khayaal, ma aha.